قرني مدهنو بالشوي هذي قور هيك نقب بالشوي قرني مدهنو بالشوي هذي قور هيك نقب طب يا الله ما وقلا قلقلا وحاران يعني خلاف وحاران وحاس أردن إلهي نوقل سبحانه وتعالى رسولك إنه وحي إليه صلوات الله وسلامه عليه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد بالنبي صلوات الله وسلامه عليه إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى بالنبي عليه الصلاة والسلام waxaad ku ogaan oo aad ku arkaysaa dadka muuminiinta oo islaamka sifadooda sida ay isu jecel yihiin sida ay maxaan ku raadayay isugu naxariisanayaan sida ay isugu dhimrinayaan waxaad ku ogaanaysaa oo ku arkaysaa dadka islaamka oo muuminiinta hal xubin ilayeen hal qof ilayeen samawade oo ah kulan looga hadlayo ama lagu xoojinayo wada jirka iyo walaalnimada ummadda Soomaaliyeed si gaar ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ayagu qayb weyn bulshada ka ah markaan leeyahay si gaar ah dhalinyarada mujtamaca Soomaaliyeed dhalinyaradu 80% waa ka badan yihiin sida darteed ayaan u aragnay inay tahay muhiimad weyn in maaragtay la siiyo ayaga doorka ugu weyn ugu muhiimsan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa dhammaan cid kasta oo qayb ka qaadatay soo abaabulida iyo taageerada kulankan waxaa inoo soo socday laba bari hore kulan looga hadlayay wada jirka iyo walaalnimada ummadda Soomaaliyeed oo loo qabtay dhalinyarada gobolka Mudug qaybaheeda kala duwan runtii kulankaas waxa aad loogu lafaguray muhiimadda ay leedahay in loo istaago isla markaana dhalinyaradu ay doorkeeda ka qaadato soo celinta rajada ummadda Soomaaliyeed soo celinta walaalnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dhalinyarada gobolka Mudug inay u istaagto doorka ay ku leeyihiin bulshada gobolka intaas kadib dhalinyarada gobolku waxay isla qaateen in ay soo dhaweeyaan walaalahooda kale ee dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaasna shir lagu martigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed gobolka kan taas oo aad iyo aad fursad weyn u ah dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada gobolka intaba gobolka Mudug waa gobol waxa la yiraahdaa waa gobol aas u ah ama ay ka soo baxeen dhalinyaradii xorriyadoonka ahaa ama xubnoodii ugu badnaa ay ku jireen sida darteed waxa farta lagu fiiqaa marar badan in ay iyagu door muhiim ah ku leeyihiin soo celinta rajada ummadda Soomaaliyeed dawlad mar labaad dadka u dhalata oo dadka ka dhalata oo dadku u taliyo ayaan doonaynaa dalkan inay ka dhalato wajiga maanta uu leeyahay dalkayagu waji ka duwan baa la ka rabaa inay keentaan ha ku tashanina nin 70 sano jira wax uu qabanaya male qabyaalad baa ka buuxda balaaya ka buuxda shar baa ka buuxda waxa weey allaha meeshiisa ku nabadgeliyo intuu dhimanayo Soomaaliya waxay sugaysaa adinka dhalinyarada gaalkacyo waa xudunta Soomaaliya dhalinyarada gaalkacyo waxa lagu tilmaamay waxa dad dib badan waaye dibta hadaan khayr looga faa'iideysana shar bay keenaan marka inaan ka faa'iideysano inaan u wada istaagno nabadda inaan walaaltinimada u wada istaagno oo mar walba le ani intaas qof maanta meesha fadhida ana isku mid bay taa mid kasta hal in hooyadii aabahay dhalan walaalkay uu yahay waa ka jecelahaan qof walba la walaal buu yahay waaye waa Soomaali waa magaca Soomaali ma wadana walaalana marka waa ina aaminsan ina walaalna qof walba oo kula socda ama agtaada mar qof walba oo Soomaaliyeena qof walba haduu aaminsan yahay inuu walaalkiis yahay saas horumar ku gaari kana anaga dhan aan walaalo noqono oo hal xubna day ka jirta liyaatan galna way la xanuunsanaysaa qofkan Soomaaliga waa xubintaadii waxaan rabaa inaan cilmiga aan baranay iyo waxyaabaha soo farbar dhalinyarada ka faa'iideystay maadaama aan labadii maalmood barnaamijka socday waxaan ka baranay saddex waxay ahaayeen siyaabood mid kood waxay ahayd walaalnimada ummadda Soomaaliyeed meesha ay ka soo bilaabatay meesha hadda ku sugan tahay midda labaad waxay ahayd wadaninimada midda saddexaadna waxay qarannimada tixdu waxay leedahay mar raba hadalka inaan ku dheeraadee
xasanow nin qaangaarahoo qaaliyaad tahay haddii aan qabyaaladii ku gelin qonna kugu beerin qormadayda iyo weedha aan ku qadimi doono qubi maysidoo waxaad ku hayn qaanad maanka ahe qormadan dadkeennii u tabi qaadan mahayaan ilaa sabankii qaabiil wax dilay qoonsi baa jiray aadmiguna way isqalanayeen qadafna wuu yile qardoof iyo xumaan baa la waday qursi iyo ede qarni iyo barbaar reerkayagu qalabka haysteene qisaas iyo waxay gudanayeen aan qaab darane markii qolo wax laysee dulmiga sulato qorteeda iyadoo qabiil iyo astaan lagu qalaynayo ayaa lagu qamaama ummado qaafilka ahaye qalad goorti qalad lagu saxee qaanac laga doono oo aad qurqurisaan xinjiro qubanayo dhiiga misna kuma qabowdane waad si qaraacantaane haddii qaamudkaygo anigu qabriga aado qallooca qofkiigula kacay ee qatliga geystay qiyaam iyo xisaab baan la sugi aad u qara weyne qofna yaan lay dilin walaal hadalku waqaane tixdaas intaas markii ay ahayd ayaan safarkaygii sii watay inkastoo aan rabin inaan ku dheeraado safarkaygii waxaan kala kulmay falal badan oo bahalnimo ah oo aan kala kulmay Kenya Tanzania iyo Zambia tixdii igu xigtay waxay ahayd safar tixaan hadda ka hor aan ku soo gudbiyay social media tixdaasi waxay leedahay hadduu gabaysadana noqonayo sanad lagu faano ama uu sabool ka baxsho sare ku gaarsiiyo ama uu samaan iyo wanaag kugu sifaynayo ama uu sumcadii waahide sadara ka reebo ama sawjadii raalliyo siman haweenkeeno ama sida salaadiyo sekada saakin lagu gaaro ama seerahaad joogtidu ka sarmarinayo ama uu qoraa saaxiyo fika yeelo ama uu sangiyo faras cayilay unku kugu siiyo ama uu qiyaama sadiyo saayid noqonayo saddex odayaana uga haro saamigii helay hayeeshee markuu igu saxnaa layma solansiine si kastaba ha noqotee marbay ka sirgaxantaay adigoo samaan rebay marbay tala ku seegtaay bal haddana siday noqotay baan ku sawirayaaye saamayn ma lahan hadal sooganoo sabab la'aaneede ansifeeya suugaantu waa sayniskoo kala markii saxalku nagu foorarsaday dirirna uu suulay oo ururtu seerahay fadhiday raqa la soo saaray samadiina ay gagaxdo sayma curin weyday oo unkii u wada sahwiyey oo saldhigi waayey oo sokeeye uu kala go'ayo la isku soofeeyey shacabkiina kala socmay oo seera kala yeeshay oo siyaasi madax looga dhigay siriq maligaaya oo qabiil sumaysani dadkii seef wada dhiibay oo jidadkii saaxiga ahaa laysu socon waayey oo ay jabhadihii sabteen sabiyan qangaarin oo surunkii aad soo martaba siigo kor u duushay oo kii samaan wadee ahaa ay ka socon weyday ayuunbaa dadkii salal ku dhacay saaxiga ahaaye safaraan dhammaanaynin bay suxulla duubeene sidii beel abaar lagu salliday solayga jilaalka oo roob sanaag uga doo sare u kaynaantay saldhigyadan ku noolayn miyaan seexan kari weyn innagoon safaarado lahayn iyo safiirtoona sumcaddeen iyo idil miyuu socod ku naafeeyey masan u dibay inaga furteen niman sarkhamiin ma baddeenni bay sacabsadeen suuriya jayne ma kalluunkii bay suuliyeen samakigii yaalay masalkay ka soo qaadayaan ugaxsideedii subagiyo baruurtii miyaa siga lagu tuuray siligii qaxootiga miyaa nala ku seereeyey masarreen ishii isii qaba nala ku sooriyey
dowladdan samaynaba miyaa cagaha loo siibay salballaar miyaa lagu matalay qola sarraynteeda ma cartaa la seerayayoo surinna loo diiday ma midaan haddeer socod taban kaba sokayn doon soomaaliyay waa ognahay waxaad samayseene dunidiina naga socotayoo siibad nala dhoobiye kuwii nala sinan jirayna way naga sarreeyaane 30 sano kamay yara intaan silic ku joognaaye waa subaxyo dunidu intaan suurka la afuufin sare uga kacay ceebta waa laga sariigtaa waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto madasha nabadda isdhexgalka iyo sida ay ku soo asaasantay taariikhdeeda inaan wax yar kooban ka siiyo madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka mudug waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobolka mudug waxayna ku asaasmeen fikir wadaniyeed iyo walaaltinimo kadib markii gobolka mudug dagaal la sokeeyay dhibaatooyin badan ay ku yimaadeen marar badan dadkeenu ay si macna daraa u qaxeen marar badan hooyooyinkeena ay dhacday in geedaha hoostooda ku umulaan kadibna si fudud ama sahlan la yiraahdo soo laabta maalinna laabta aan ku jirno ayaan waxaan go'aansanaa haddaan ahay dhalinyarta inaan taageerno ama aan garab istaagno dadka ka shaqaynaya nabadda gobolka mudug iyo degmada gaalkacyaba runtii waxay soo mareen taariikh dheer markii koowaad waxaan maraynay 1 iyo 2 wariyaha qof Soomaali islaam oo Soomaalinimo ku jirto oo wadani ah oo qof aan qabiil u eexanin seel ugu heli kara ayaan ku jirnay oo magaalada daafeeda kala duwan oo goobeen 1 2 3 4 alxamdulillah maanta waxay marayaan boqolaal iyo kumanaan waxaa jira marka waxa aan ku higsanayno waxa weeye in la helo marka koobaad gobolka mudug oo nabada in la helo iyo sidoo kale Soomaaliya oo mid ah in la helo gobolka mudug kaliya kuma qanci karno waad ogsoontiin dadkii xornimada Soomaaliya u soo halgamay waxa dad dhalinyaro ahaayeen waxay ka soo jeedeen gobolka mudug ayay dadka ugu hogaamiyaasha ah sida Cabdullaahi Ciise iyo kuwa kale ay ka soo jeedeen marka annagana waxaan ku eedayaa reer mudug haddaan nahay dawladnimadii qarnimadii Soomaaliya in annaga dhisnay haddana annaka inaan duminay maanta waxa marka la diyaar u nahay annagoo guriyayna iyo xaafadeena ka bilaabayna oo dadkeena marka hore walaalaynayna qabyaaladana iska reebayna wadaniyadna ku ballanay inaan markaan gobolkeena mudug aan meel fiican gaarsiino kadib Soomaaliya dhan aan gudubno insha Allah taala markii aan hawshan bilaabaynay waxaan ugu hormaray wacyigelinta in laga bilaabo sidii bulshada nadiifka ah loo kasbado waxaan ka bilownay bahda waxbarashada iyo iskuulaadka alxamdulillah maanta halkan waxaa jooga in ka badan oo kamid ah bahda waxbarashada waxaa dhacday mararka kamid ah arday magaalada gaalkacyo ardayda kamid ah oo barnaamijkaas walaalaynta aan isku barnay in haminada kamid ah ayuu magaalada gaalkacyo dhexdeeda ku mushaaxaya ku qaxweynaya inay xabsi ku muteen waxaan hadda safka dhexdiisa uga jeedaa qaar ka mid ah dhalinyaradii xabsiga u gashay barnaamijkan ah walaaltinimada iyo nabadda gaalkacyo aad bay u mahadsan yihiin mudanayaal marwooyin anoo si gaar ah dhalinyarada oo la hadlaya dhalinyaro wax badan baa leen yiri marka mariga marayseen ama secondary-ga ama jaamacad baa soo gaarteenba waxaa tiin mustaqbalkii bari maanta waxaan rabnaa inaan raacno waxaan nahay mustaqbalkii maantay halna xasuusnaada wax dhaliil yiraahdo waxa ma natarayaan haddaan ama maamul dhaliilno ama madaxda aan dhaliilno ama raan cid heel baan la hartay waxa ma noqonayso waxaa jirta xikmad leh xalil mushkila badalan min ashakwa minha mushkilada xalli adoo aan ka sheegan cidna aan ku eedayn waxaan rabnaa inaan maamul iyo nidaamka iyo dawlad kasta oo jirta hadalkeenu uu soo noqon hadal mucaarada ah oo ama lagu caaya ama la yiraahdo ayaga meesha dhigay laakiin inaan garabkeena qabano waxaan awoodna inaan sameeyno in waxaanu aysan dhaliil kaliya noqone wax allaali wixii ay u baahan yihiin maamul haday tahay iyo dawlad dhaxa intaba inaan la garab istaagno oo annaguna mas'uuliyadeena aan qaadano haddii aan wax yar ka taabto halku dhigeena waxa weeye inta noolba nabad u baahan haddii hadda boqolaal la laayo dadkii hore dhintay ma noo soo laabanaya niba wax kale hebel baa dhintay sidee ku jooga boqol ree hebel dishay haddaan ku keeno aaleysid hebelkii ma soo laabanaya waa maya marka halku dhigeen waxa weeye inta noolba nabad u baahan iyo isku daalnaya
maxaa inoo dana oo jeedin boorkan ku qoranta isku daalnay maxaa inoo dana intaas san soo leenaynay dagaalo sokeeye iyo kuwa siyaasadeysan intaba horumar waa ku gaari weynay maanta waxaan u baahanahay inaan wada kala qaadno insha Allah taala shirweynahan wuxuu ka soo bilowday 2 maalmood oo dhalinyar konton ah tababar la soo siinayay tababarkaas ku saabsanaa wadaniyada walaaltinimada iyo qarannimada maantayna waa maalintii saddexaad oo bulshadaan kala duwan la isku keenay ayadoo laga hadlayo wadaniyada iyo walaaltinimada insha Allah taala isla maantay gelinka dambe waxa dhici doonta ciyaar isdhexgal oo magaalada Gaalkacyo dhalinyarada loo sameeynayo waan aragtiin aawka sportiska inuu u diyaarsan yahay oo meesha uu yaalo waxaan rajaynaynaa insha Allah taala maamulka degmada ama duqa degmada inuu u qori tuuro insha Allah taala u gudoonsiyo wixii waa in nuxur ka soo baxay hore loo sii socdaa waxa markii lagu soo celceliyo waxa dareemaysaa in wax qaldan yihiin annaga reer Gaalkacyo bilahan dambe nabad baan leenahay Soomaa nabadda naga maqan way macnaheedu sababta loogu soo celcelinayaa waa baahida nabadda loo qabo wax nabad ka muhiimsan ma jirto qofku hadduu xanuunsan yahay nabad ma qabo hadduu gaajoon yahay nabad ma qabo hadduu cabsanahay nabad ma qabo marka wax ka weyn oo ilaah la wajismo ma jirto nabad hadaa qabtid oo dhinac kasta ka nabad qabtid oo mustaqbalkaaga ka walwalaynin oo aad shaqaysay ilaahay u cibaadaysatay nabadku wax ka weyn ma jiraan waa barnaamij fiican way galabta waxaan joognaa garoonka Cawaale oo ay ka dhici doonto ciyaar u dhaxaysa Gaalkacyo labada degmo ciyaartaas oo aan ugu talgalnay ciyaar xoojinta nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada ee Soomaaliyeed iyo dhalinyarada reer Gaalkacyood ciyaartaas oo ku saleysan barnaamij soo socday dhowr bari oo maalintii hore ahaa workshop loogu talagalay in dhalinyarada lagu baraarujiyo lagu xoojiyo wadanimada iyo qarannimada iyo walaalnimada ummadda Soomaaliyeed maantayna barnaamijkaas uu fayskiisii labaad bulshada Soomaaliyeed oo dhan la isugu keenay taasoo lagu baraarujinayay laguna wacyigelinayay in nabadda iyo xoojinta nabadda iyo walaalnimada galabtayna ciyaar barnaamijka lagu soo xirayo ciyaar isdhexgal oo u dhaxaysa Gaalkacyo labada degmo waxaan rajaynayaa in dhammaan waxa weeye ciyaartoyda labada dhinac ay ciyaar qurux badan oo waxa weeye oo heer sare ah ay soo bandhigaan game-kuna waa inoo furan yahay